waxaa xadhigga laga jaray masjid cusmaan binu cafaan oo ka kooban dhismaha dhulka hoostiisa ah iyo jiibalastu oo laga dhisay magaalada jigjiga kuna baxday lacag dhan 66 milyan oo bir. munaasabadda xadhigga jarka dhismaha masaajidkani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim, wasiirka xafiiska biyaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed Xuseen, mas'uuliyiinta golaha sare ee arrimaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta maxkamadda shareecada dowlad deegaanka Soomaalida kuwa maamulka magaalada jigjiga, culimada diinka Soomaaliyeed oo uu ugu horeeyo Sheekh Maxamed Cabdi Umal, salaadiin, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. xadhigga jarka masaajidkani Cusmaan binu Cafaan oo uu ka hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee arrimaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xusay in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida isbeddelkii kadib kor loo qaaday xuquuqda asaasiga ah ee shacabka lana ilaaliyay, taasna ay ku cadaynayso in xorriyad la siiyay arrimaha diinteena suuban. goobtan waa guriga Ilaahay, waa goob cibaado weeye. annagu ducaan soo doonanay khudbada iyo inaan hawlahaas jeedino ma naaw imanin in culimada iyo shacabkaas ay noo duceeyaan in Ilaahay naga dhigo kuwa inta ay mas'uuliyadda hayaan fahma mataqaanaa in shacabkooda ay u adeegaan mas'uuliyadda saaran ee Ilaahay saaray inay ka soo baxaan in loogu duceeyo ayaanu nimid maadaama culimadii ay shacabkii halkan isugu yimaadeen. intaa waxaa dheerun in aan u mahad celino dhammaan intii ka qayb qaadatay in masaajidkan maanta uu noqdo masaajid ballaaran oo dib loo dhisay oo ummad badan ay ku tukan doonto, ku cibaadaysan doonto, rag iyo dumarba meelihii goobihii muhiimka loo sameeyey. xaqiiqiyan intii isbeddelku u dhacay hadda waxaad moodaa in masaajidadu ay aad soo fara badanayaan. culimadu waxay noo sheegtay in 700 in ka badan oo masjid la dhisay. intaa waxaa dheer in goobaha quraanka lagu bartay iyo madrasooyinka iyo machadyadii iyo ay 1200 ay hadda ay iyaguna gaadheen. waxaa intaa keenaya waxaa ugu muhiimsan waa nabadda weeyaan. haddii nabad la haysto waxyaabaha kale oo dhan waa la helayaa. marka waa uun in xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba aan sii adkaysano nabaddaas. nabaddaas dhan walbaba muhiim bay noogu tahay in diintii iyo akhlaaqiyaadkii ay sii kobcaan, oo ku dhaqankoodii ay sii ballaadho, oo bulsho qiyam leh oo waxyaabihii asaasiga u ahaa ay u dhisan yihiin ay noqono ayay keenaysaa. waxa laga rabana xukuumadda waa uun in xuquuqaha asaasiga ay ilaaliso weeyaan. wax kale lagama rabo. waxa weeyaan marar badan waxyaabo dastuurka laga hadlaa oo in la kala saaro shareecada iyo diinta laakiin iyo dawladda. laakiin xaqiiqiyan waxa weeye inuu dad islaam nahay. dadka inta badan arrimahaas ka hadla waxayna fahansaneen kow in maxkamadda shareecadu ay tahay hay'ad dawli ah oo dastuurku aqoonsan yahay oo arrimo badan oo ku saabsan shareecada islaamka ay hirgeliso. hay'ad dawli oo miisaaniyad leh oo wasaaradii kala siman weeye. waxaa kaloo isna meesha ku jira majlis aclaagi oo la og yahay inaan laga maarmayn oo u qaabilsan wixii la xidhiidha arrimaha islaamka oo dhan. waxaa kaloo iyadana xaqiiqa in qiyamkeena iyo akhlaaqiyaadkeena iyo wax walba ay ku dhisan yihiin in badan oo inta badanba ay diinta ku dhisan yihiin. marka haddii dadku ay isleeyihiin bal xogaha dawladdii masaajidii bay aad u timideenan inay saa u ogaadaan. masaajidii dawladdu ma kala marna marar badan dhinacyo badan marka laga eego. waxaan isleenahayna mashaariic badan oo xadhigga aan ka jarnaa jiro kolley mashruuc ugu khayr badnaa ee xadhigga laga jaray waa kanaan isleenahay oo masaajidka in xadhigga laga jaro. dawladda mas'uuliyadaha saaran ee ugu muhiimsan marka la eego sooyaalka deegaankeena waxa weeye in xuquuqdii asaasiga ahayd ee shuruucda waddanka u taalla ay muwaadiniinta siisay in la ilaaliyo. ta waqti dheer la waayna taasay ahayd. waxa weeyaan in culimada la ixtiraamo,
shacabkii muwaadiniintii la ixtiraamay inay ilaahooda caabudaan si xor ah ay u caabudaan u cibaadaystaan in goobaha masaajidada la ilaaliyo oo aan la dhibaataynin inaan la bahdilin diinta oo culimada iyo dadka ka shaqeynaya hawshaas oo la karaameeyo sidii dhaqankeenu ahaan jiray aynu ku soo dhammaanteen ku soo caanamaalay ku soo noolayn marka dawladda inta baa laga rabaaba anigoo ku hadlaya xafiiska golaha arrimaha islaamka iyo magacaygaba waxa uu doorkanagu yahay in aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celino bulshadayadana aanu u sheegno in nicamtan ilaahay isdaba socota aynan bilaash ku imanine ilaahay inaan in badan ugu shukrino ilaa shannana cid walba oo dhistay masaajidkana aanu u mahadnaqno laguna daydo cid walba oo fikir iyo maaragtay maal iyo xoog iyo caqli kaga qayb qaadatay intaba inaanu u mahadnaqno ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ajri ka siiyo runtiina saad wada ogtihiin waxyaalaha keenay aynu mar walba ku celcelinno ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala ayay ku timid cid keentay ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamtiisa inagu manaystay weeye waxaanad ogtihiin bulshadu haddii ay hesho xorriyad haddii ay hesho madax bannaani hadday hesho in dacwadeeda iyo diinteeda aynan caburis iyo cabsi toonan ka qabin hadday hesho bulshadu iyada maxay ahayd qabsanaysa oo masaajideeda dhisanaysa oo doorkeeda qaadanaysa waad aragteen hadda mashaariicda masaajidda xadhika jarkeedu waa isdaba socdaa hadday noqoto gobolada hadday noqoto maxay ahayd caasimadda deegaankeenna meel walba oo tagto masaajido kan oo kale laga dhisayaa degmooyinkiiba kuwan oo kale hadda degmooyinka marto masaajido noocan oo kale degmooyinkii laga dhisayaa runtii waliba aad ku u fogfog ayaa laga dhisayaa iyagoo iskaashi lagu dhisayo oo bulshadu ay dhisanayso oo maaragtay doorkii bulshadu uu maaragtay uu socdo arintana waxa weeye waa furfuraanta iyo wanaaga ayaa inoo keeni ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo siyaadiyo nicamta ilaahay inaan ugu shukrino aynu wax badan oo khayr ah oo isbedelkii kadib ayaa inoo yimid oo fara badan oo ilaahay ina siiyey xaq baynu u leenahayna inaynu sheegno oo nicamta ilaahay ugu shukrino xaq baynu u leenahay ilaa shannana maxay ahayday si gaar ahana dadkii masaajidka dhisay ee ka qayb qaatay iyo cid walba oo ka soo qayb gashayba waan u mahad celinaynaa